12 Abriil oo ku beegnayd shalayto maanta muuqaalkan duubaya 13 Abriil waxa soo baxay CPI-da Mareykanka oo bilaha ah month of a month CPI-da year over year core CPI saddexdan waxay kala duwan yihiin waxa weeye CPI-da month of a month waxa weeye bishan inteeba inflation ku dhacay alaabaha marka loo eego bishii hore 0.1 buu ahaa good numbers buu ahaa waxa uu sheegayaa maadaama 0.4 bishii ka horreeyay ahaa 0.2% la filayay 0.1 na soo baxay waxa ay sheegaysaa in inflationkii uu hoos soo dhacayo sidoo kale marka loo eego CPI-da year over year-ka waxaynu u jeednaa in la filayay waxa loo yaqaano 6% uu ahaa bishii hore I mean forecastigu ama expectationku uu 5.1 ahaa 5.0 buu noqday labadan marka aad bay usoo dhaceen sababtoo ah waxa weeye waxa aad u saameynaya March xogta waa bishii March hore waxaa jiray Ukraine Russia waa garanaa suuqu inuu cirka aaday goldi oo kale USD dhulka gashay dhaqaaluhu aad u wareeray inflationku cirka isku shareeray marka xogta marka loo eego sanadkii hore aad bay u caawinaysaa oo sanadka intii hore aad uga degan yahay sidoo kale core CPI-gu waxba iskama bedelin core CPI iyo CPI waxay kala duwan yihiin CPI waa dhammaan consumer price inflationka ama qiimayaasha ay shacabku wax ku iibsadaan wax walba ha ahaato haddii ay tahay goods oo iyo services goods maxaa ka mid noqon kara dhammaan alaabaha guriga aad u iibsatid sidoo kale haddii ay tahay fresh haddii ay tahay barkimo haddii ay tahay mobile haddii ay tahay xataa toothpaste ama toothbrush haddii ay tahay computerkaaga haddii ay tahay baabuur haddii ay tahay baabuur usil haddii ay tahay samuraa soo iibsatay haddii ay tahay maruuxadaa soo iibsatay haddii ay tahay basta bariis roodi everything oo guriga loo iibsado oo kale waa CPI core CPI-dan waxa weeye wax kasta marka laakiin laga reebo food and energy oo shidaalka waxa loo yaqaan ama energy-ga oo isku dhamba iyo commodity kale loo yaqaano foodka marka laga reebo waa core PPI core CPI marka sababtoo ah foodsku aad bay isu bedbedelaan fluctuation ku dhaca kor hoos waxa laga yaabaa bishii hore bishan inay cuntadu in badan iska bedeshay laakiin waxyaalaha kale badanaa waa isteeri marka xogtan haddii aynu eegno oo aynu akhrino waayo waxaynu u baahanaa inaynu akhrino we have to read it si aynu u garanno marka waxa loo yaqaano bal maxaa dhacay maxaa isbedelay inta u badan waxaan u malaynayaa isbedelka ugu weyn wuxuu ka dhacay waxa loo yaqaano alaabaha aan cuntooyinka ku jirin marka haddaynu eegno xogta waa la akhriyaa waa la isku daya inay akhridid waayo waxba badan le ka fahmaysa okay xogtan CPI-da okay let me go back okay consumer prices-ku wuxuu kor u kacay 0.1% in March seasonally adjusted basis after increase 0.7% in February session okay 0.1 March kor u kacay marka loo eego seasonal adjusted wuxuu kacay waxa loo yaqaano 0.4% soo soco meesha rawaatan cunooyinka haddaynu nimaadno cunooyinka bishan eeg waa bisha March waxa loo yaqaano cuntadu waxaad moodaa inay inflationkeedu hoos soo dhacay bisha March marka loo eego bishii February iyo koray joogtay December iyo March isku mid ah sooma okay cuntooyinka guriga dabadaysa ah oo suuqa ah I think iyaguna waa good waxa kaloo iyaguna good ah oo weliba negative ah waxa loo yaqaano cuntooyinka guriga dabadiisa yes waxa kaloo iyaduna aad u fiicnayd oo inflationkeedu aad u soo kabtay waxa loo yaqaano this one oo ah energy commoditieska -4 buu noqday awal 0.5 plus buu ahaa medical serviceska oo kale iyagana eeg waxa weeye wax badan bay isbedeleen inkastoo medical serviceska waxa ku dhacay medical care serviceska waxa ku dhacay xoogaa kor u kac baa ku yimi 1 buu noqday awal negative 0.5 no 0.5 negative buu noqday awal 0.7 negative buu ahaa this one oo kale transportation services weli waa high very high waxa kaloo high ah let me check this one waa medical care commoditieska waxyaalaha medical care-ka ah sidoo kale waxa high ah waxa loo used cars and trucks baabuurta la isticmaalay oo kale waxaa hoos soo dhacay waxa loo yaqaano this one oo ah commodity less foods and energy commoditieska korontadoo kale haddaynu eegno maraykankaas dadkaas oo isticmaalaan waa 0. negative ayaduna hoos bay usoo dhacday oo inflationka xamid aynu ka yaraanayo dhammaan waxaan waxay isugu jiraan waxa loo yaqaano energy iyo iisoo qabo goods and services dhammaantood marka xogtu aad ay u dheer tahay waad akhrin kartaa haddaynu hoos marka tablekan aan rabaa markaynu eegno cuntooyinkii baynu hadda midnida dul istaagana tusaale ahaan foods at home
bakery productska, meatiska, poultryga, waxyaalahaas oo kale meatiska iyo poultryga ay aad usoo dhaceen awal 0.7 plus abay ahayn negative 0.1 ay noqdeen February 2023 ilaa iyo no March 20 February 20 March yes this one yeah seasonal waxa weeye this one waa seasonally adjusted kii hore waa wuxuu ahaa monthly adjusted marka anyway markaynu eegno haddeer oo kale seasonska laftarkooda poultryga iyo waxyaalaha cuntooyinka I mean hilibka iyo hilibka digaaga kalluunka iyo ukuntu negative 1.4 bay noqdeen awalba negative 0.1 bay ahaayeen marka waxaa moodaa inay waxyaalo badan aad usoo kabanayaan marka la eego inflationkii ka jiray haddaynu eegno this one negative 8 ka ahaa negative 7 ka noqday I think this one waa kordhay waa utilityga waa gas serviceka sidoo kale markaynu eegno maxaa aad isu bedelay waxa aad isu bedelay baan rabaa this one oo kale sicir barar badanaa ku dhacay waa medical commodity waa kiin hore usoo aragnay okay airlinesku diyaaradu maxaa ku dhacay airline fareska waxa weeye for yahay iyaga qudhoodu waxa moodaa inay hoos soo kabteen marka anyway xogta waa xogta CPI-da waxaad noo baahan tahay xogta in akhridid inaad fahamtid waxaas oo iska waxay kaaga baahan yihiin faham fahamkaa dheer kadib waxaa samayn doontaa insha allahu tacaala horumarin doontaa in aad ku trade garaysid okay waxaan oo dhan waxyaalaha isbedel ku yimi waa la qiimeeyaa every month waa la qiimeeyaa maxaa iska bedelay hilbaha baconka waxaa loo yaqaano hamka excluding canidka pork chopska maxaa iska bedelay waxaasoo cuntooyinkii poultrygii chickenkii fresh whole chickenkii fresh frozen chickenkii mid walba gaarkiisa loo qiimeynaya waa inagii nidhi CPI-du waa basket of goods waa sillad alaabe ay ka buuxaan alaabaha maxaa ka mid noqon kara waxaan oo dhanaa ka mid noqon kara poultryga chickenkii seafoodkii fishkii frozen fishkii qaboobaa seafoodka okay waxaa ka mid noqon kara ukuntii oo iyaduna intee nooc noqonaysa waxaa ka mid noqon kara fresh fruitskii waxaa ka mid noqonaya tufaaxii mooskii citruskii liintii orangegii vegetableskii potatoeskii lettucekii tomato tamaandhadii I mean waxaas oo dhan ka mid noqonaya mid walba waxaa gaar loo qiimeynaya intee isbedelay kafeega intee isbedelay sonkortu intee qiimaheedu kor u kacay waxaa loo yaqaano butterka intee buu kor u kacay waa fatska aan oil ka mid yahay cunooyinka kale suubka iyo frozen and freeze dried prepared foodska say u kaceen snacksku intee kaceen macnaha waa imagine garayn kartaa waxa magacyo la sheegay energy kale markaynu imaano energy commoditieska intee kaceen ama intee hoos u dhacay fuelka shidaalka marka loo eego other fuelska fuel oilka saliidda marka la eego parabene firewoodku se intee kacay gasoline waxaas oo dhan baa mid loo eegaya electricity oo kale sidoo kale waxaa ku jira waxaa loo yaqaano floor covering window covering bedroom furnitureki waxyaalaha sariirtu ka samaysan tahay living roomka qolka hurdada oo kale waxyaalo ka samaysan kitchenkii ay meeshikadii dining roomkii furnitureki waxaas oo dhan baa mid loo qiimeynaya qori laambad musbaar xataa hadduu yahay everything waa la qiimeynaya haddana waxaa la dhahaya intaas waxaa ku dhacay inflation menis apparel waxa weeye ayagana intee isbedeleen waxa weye dadka waxyaala isku qurxiya suudka oo kale intee ku kacay hore intee inflationkiisu noqday bishii hore marka loo eego sanadkii hore marka loo eego xataa buumahaaga iyo shortiga aad sidatid iyo garanka aad sidatid iyo hoosgashiga aad sidatid waa qiimaysan yihiin intay kor u kaceen month of a month iyo year of a year kabuhu intee kor u kaceen footwearka jewelryga waxyaalaha la isku qurxiyo saacadaha vehicleka baabuurta cusub baabuurta la isticmaalay baabuurta waxa weeye waaweyn ee truckiska waaweyn ee iyaguna cusub truckiska la isticmaalay taayirada wax allaal waxaad doontid all of these items bay ka kooban tahay CPI marka wax fudud maaha shelteriski baa ku jira icareki hosbitaalka oo kale marka aad tagtid dentalka ilkaha oo kale ku xiraya ma qiimiyaashiisu ma koray u kaceen mise hoos u dhaceen haddii bishii hore lacag qaali ah ilkaha lagu xiray bishan intee lagu xiray health insurance-ka oo kale kana ugu muhiimsan haddaynu kan eegno waa negative 4 yeah, I think waa areadii health insurance-ku laakiin kasta kor u kac u sameynaya marka bilii hore loo eego insurance-ka caafimaadku waxa weeye kor buu u kacaya baabuurta kirada ah iyo baabuurta waaweyn oo kirada ah
I mean car and truck isku mid ay u naqaanaa waa radada baabuurta xamuulka iyo baabuurta yaryar kirada ah intee kor u kaceen I think si fiican bay hoos ugu soo dhaceen waayo inflation aad abaa jiray oo laga baqayay in Mareykanka lagu kala yaacdo oo ilaa 87% uu gaaray inflationku hadda 5 uu kusoo noqday so that's a good thing marka xogta inta halkaa taalla waa wax walba oo basket ah oo ay shacabku isticmaalaan wax walba oo shacabku isticmaalaan qiimihiisa la eegaya mid and then hadha waxaa kasoo bixi doona waxa loo yaqaano CPI data hadha waxaa kasoo bixi doona waxa loo yaqaano consumer price inflation month of a month iyo year of a year marka I hope inay intaas ku caawisay I hope inaa waxun ka fahamtay